السلام عليكم أصحابتا wararku waa iska soo daba dhacayaan Iran waxaan filayaa caawo Israa'iil waa ay kululeysay sababtu maxay tahay Donald Trump waxa uu ku sugnaa wadanka Canada oo shirka wadamada G7 uga qayb galayay afayeenka aqalka cad Caroline Levitt waxay goordhow xaqiijisay in madaxweynuhu uu waqtigiisii ka hor caawo uu si degdeg ah ugu soo laabanayo caasimadda wadanka Mareykanka ee Washington DC arrimo muhiim ah darteedna uu ugu soo laabanayo Trump waxaan ogeyn goordhow inuu soo qoray qof kasta oo ku sugan caasimadda wadanka Iran waa inuu degdeg uga baxaa 17 milyan oo qof dadka badan ayaa ku nool caasimadda wadanka Iran ee Tehran Mareykanku waxa uu doonayaa inuu Tehran duqeeyo Israa'iilna la safto oo dagaalka ka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil uu ka qayb galo arintaasi ayay u badan tahay sababtoo ah waxa la leeyahay hadda ninka Trump xitaa shirka wadamada G7 waxa la filayay talaadada inuu soo baxo isla markaana ay habeenka arbacada uu inta u soo hoydo maalin ka hor waqtigiisii ayuu soo baxaya waxa uu sidoo kale sheegi doonaa kulankii uu la lahaa madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo arrimaha dagaalka iyo Ruushka uu kala hadli lahaa madaxweynaha wadanka Mexico Claudia Sheinbaum ayuu la kulmi rabay oo arrimaha dhaqaalaha iyo xadka iyo soo galootiga ay ka wada hadli rabeen arrimahaasi oo idil Trump waa uu ka soo tagaya caawana degdeg waxa uu soo laabanaya caasimadda Mareykanka ee Washington DC sababtu waxa la yiri ay afayeenka aqalka cad ay sheegtay arrimo muhiim ah darteed inuu u soo laaban doono golihiisa amniga qaranka ayuu la kulmi doonaa marka go'aan intee leeg ay qaadan doonaan si toos ah walba waa la ogaa oo dagaalka Mareykanku waa uu ku jiray laakiin si toos ah ma uusan ugu jirino si dadban ayuu ugu jiray diyaaradaha Israa'iil waa kii shidaalka siinayay hubka siinayay sirdoonka xogta siinayay waxyaabo badan ay wadaagayeen laakiin hadda waxa la leeyahay maamulka Trump ama Mareykanku ma toos ayuu doonayaa dagaalka inuu u galo arintaasina ma tahay arin Trump kaligiis oo go'aan qaadan karo iyadoo uusan Congress-ku uusan meel marin ma taageero Congress-ka ayuu haystaa oo si degdeg ah ayaa Congress-ka inta lagu horgeeyo ayay horay ka ansixin doonaan inta la isugu la dhihi doonaan qalinka ku duuga in Mareykanku uu dagaalka galo xaaladdu siday noqon doonto lama ogo laakiin Iran cabaadkeedu waa Israa'iil cabaadkeedu waa uu dhamaaday ay dhahayeen dagaalka Mareykanku ha nala soo galo marka xaalku bariga dhexe waa dhaafay marka hadda Trump degdeg ayuu caawa Washington DC ugu soo laabanaya wax yar kadib sida afayeenka aqalka cad ay sheegtay arrimo muhiim ah darteed ayuu u soo laabanaya shirkii G7 waqtigii uu ka soo laaban lahaa waqti ka hor ayuu ka soo laabanaya xitaa madax fara badan ayuu rabay in uu la kulmo oo madaxweynaha Ukraine uu ka mid yahay madaxweynaha Mexico uu ka mid yahay maanta ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayay soo arkeen oo arrimaha heshiis ganacsi ay wada gaareen